habeen wanaagsan habeen wanaagsan kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta meel kastoo aad joogtaan waa idin salaamayaa waa khadiijo oo magaalada u kurgalaysa xaaladda magaalada siday tahay maadaama lagu dhawaaqay baandow in looga soo horjeedo nacam xanuunkan corona virus waa ujeedaa gebi ahaanba waxaa xiran dukaamankii restaurantiyadii meelihii ganacsiga waa albaabada ayaa loo laabay ma jiro wax shaqaynayo meelihii telefoonada dukaamankii ganacsiga waaweynaa kuwii yaraa intaba ma shaqaynayaan waa ujeedaan magaalada maadaama iyadoo la dhaqangelinayo madaxweynaha dalka faransiiska mister emmanuel macron codsigii uu soo jeediyey oo ahaa in guryaha la joogo aniga hadda waxaan u soo baxay wax yar inaan service yar soo samaysto magaaladana aan eego bal xaaladda jawiga sidee tahay magaalo la buuxay ahaan jirtay hal meel oo furan ma leh dadkii guryihii ayaa la joogaa qofkii soo baxo lacag ayaa laga qaadi doonaa canshuur ayaa laga qaadi doonaa dukaankaasa in yar furan kuwa cuntada dukaamanka cuntada way furan yihiin walow dadkii moodaysid cuntadii inay yani aad u raranayaan sababta cunto la-aan ma jirto waddanka wax walba waa u qorshaysan yihiin waa waddan horumarsan wax walbana sidii loogu talagalay ayay u socdeen laakiin cilladdu waxay tahay dadweynihii ayaa cabsi waxay ka qabaan maadaama xanuunka la yiri wuu soo batay sidii hore wuu ka soo batay dalka faransiiskana ku dhowaad 180 qof ay ku dhinteen 800 oo qofna ay yacni xanuunkan yani ula ildaran yahay ilaa iyo dhowr boqol ilaa iyo 1700 yani xanuunka uu taabtay marka waxaan siri caawa bal fiiri jawiga weliga fiid hore waaye hadda dukaankan waa dukaamanka ayagana yaryar oo dukaamanka laga adeegta ayaa isagana furan yani qotulyoonka waxyaabaha daruuriga ayaa furan restaurantiyadii waa la xiray meel kasta oo 3 qof ka badan ay iskugu imaan jireen waa la xiray meelihii timaha lagu hagaajinayay meelihii telefoonada lagu iibinayay meelihii serviceka normalka ahaa wuu shaqaynayaa restaurantiyadii albaabada ayaa loo xiray ma jiro haba yaraatee meel shaqaynayso sidaad arkaysaan magaalada trist yani mugdiyaa moodaa maadaama dadkii ay guryihii la yidhaaha la fadhiisto waa la istaqsiirayaa marka qof walba taqsiirka ayaa laga baqanayaa ciidamo ayaa meelaha taagtaagan qofkii la qabto canshuur ayaa laga qaadaya aniga kole canshuur lagama qaadayo qofka shuruudihii oo qofka bannaanka usoo baxayay ayaan ku jiraa marka waa ka hortag xanuunka in laga hortago restaurantigan wuxuu ahaan jiray mid aad u weyn oo dadka isugu yimaa mugdi albaabada u xiran kaas halkan waa la buuxi jiray ilaa habeenkii xilliga dambe la buuxi jiray meeshan haddana waad ujeedaan sidoo kale restaurantigaas wuu xiran yahay albaabada loo laabay waxaan idin tusinayaa meelaha oo muhiimka ah dadka inaan u kurgalo bal inaan idin tusiyo jawiga gaar ahaan dadka soomaaliya ku nool basaska sida caadiga u shaqeynaya inta waa stop waaye maadaama bas stop uu yahay dadka aad uma socdaan laakiin baska saacadihii loogu talagalo ayuu shaqeynayaa sababtoo ah haddii basaska ay yaraadaan waxaa dhacayso
in dadka ay aad isugu ciriiriyaan ay nacam noqdaan dad xanuunka uu sii faafo marka maadaama faransiiska uu yahay waddan horumarsan caafimaadkooda ay ka fikirayaan ay caafimaadka shacabkooda waxay sameeyaan inay ka hortagaan xanuunka haddii basaska ay yaraadaan macquul maahan in dadku يعني حنون لقى هرتي كر هذه بسس كي يرادان ذاتك إسكو عريريان حنون لقى قادا بسس كي إبر أيه سعدان بس كان لبيه حلقة فاسارن بس كاس لبيه حلقة فاسارن يسدح كم بدنا صوت عدات جورية فريستان قفل بحوك بقنا يا بس هدور راعه ترين هدور راعه وحول مودا إن حنون كلا قادا مركزي ده دراد ده dalka Faransiiska maadaama uu yahay wadanka labaad I think wadanka labaad xanuunkan aadka yani dawladda iyo wasaaradda caafimaadka hay'adaha ku shaqada leh sida ay sheegeen Spain ayaa ka mid ahayd haddana Faransiiska inkastoo aanan maqlin Germany iyo wadamadaas kale يعني دتك سيدان oo kale loolama dhaqmin yani waxay leeyihiin just qof walba waa si ilaaliyo inkastoo aan maqlaayay Jarmalkan arintan in aad xooga u taabatay in habeen wanaagsan magaalada Paris ayaa salaamaya meel kasta joogtaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogto in salaamaya in habeen wanaagsan ay leeyahay waxaan u soo baxay bal in adeeg wax yar sameesto laakiin aan u korgal magaalada siday tahay magaalada way iftiimi jirtay maadaama albaabadii meelihii ganacsiga albaabada loo xiray waxay noqotay meel oo aad moodid mugdi nalalkii magaalada way shidan yihiin laakiinse mugdi waa mugdi waxaan rabaa bal inaan fiirsho iskuulaadka restaurantigan wuu xiran yahay inta restauranti aan soo dhaafay wuu xiran yahay waxaan rabaa inaan fiirsho bal siduu iskuulka waqtiyada la furaayo siduu u xiran yahay inaan bal aan kala qaadano fikradaha idinku soo kordhiyo xaaladda xataa gawaaridii ayaa yar waad arkaysaan ma jiro gawaaridii sakankiiba mari jireen hal iyo laba ayaa marayso gawaaridii way yar tahay hal iyo laba ayaa marayso marka goordhow dadweynaha ayaa waxay u sacabatumayeen dhaqaatiirta sida aadka dhaqaatiirta ay ugu dadaaleen ka hortagga xanuunka waxyaabaha serviska culus ay hayaan halkii dhakhtar loo tegi jiray waxaad arkaysaa dadka inay si aada ay dadka u soo buuxsamayaan dhaqaatiirtii oo aanan daalin bal halkan aan fiirsho waa iskuul weyn waa iskuul weyn xaafadda waa la soo dejiyey inaan nacam uu xanuunkan dartiisa waxa la soo qoray information ku saabsan waxyaabaha qasabka ku ah qofka qasabka ah in la sameeyo waalidiinta ayaa halkan loogu qoraa waxyaabaha ay waalidka sameynayaan magaalada waxay ka timaadaa meerka magaalada la yiraahdaa Paris يعني waxyaabaha uu soo bandhigayo iskoolaadka lagu soo qoro waxaan leeyahay information waaye informationadan waxay ku saabsan yihiin xanuunka coronavirus marka kale waxaan dhihi karaa dad isku tashtay waayo oo caafimaadka aad uga dadaalo dadka waxa la gacnaha dhaqdaano qof yu salaamin qofkii xanuunka qabo in la soo sheegaa hadduu qofka xataa hargab caadi u qunfaco waa laga shakinaa marka waxaa leeyahay gurigaaga joog haddaaba qunfac isku aragtid gurigaaga joog midda kale aan rabo inaan ku daro waxay tahay waxaa jira dawooyinka ayaa aad loo gadanaya awal raashinkay ahayd dawada waa inuu dhakhtar kuu soo qoro intaadan cunin waxaa jira
وسود دالو وسود لجي هاي لا يابنا فرمسي ياشا حتى فرمسي كان فرسامبل ولا حرة waxay ku leeyihiin mamnuuc waa in la iibsado farmasigan hadda waxbay soo qoreen waxaa lagu leeyahay baarsimaalka waxa ugu yar oo qofka iibsan karo halkan waa restaurant asagana waa albaabada loo xiray wax shaqay wax jooga male waxay soo dhigeen inaan la iibsan karin inaan wax badan la iibsan karin waxyaabaha qutul daruuriga ah inaan wax badan la iibsan karin marka halkaan aan rabaa inaan bal sii gooyo waan isku soo noqon doonaa haddii macquul noqoto caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dawooyinka waa la diiday in la iibsado sababtoo ah waxaa la yiri haddii daawooyinka la gato wax badan lama iibsan karo in yar qofka la ogol yahay baarsimaalka san ordonansia la gada jiray hadda adigoo gadanaysa dhakhtarka ay soo kusoo qorin hadda waxaa bilaabatay inaa la joojiyo wax badan in yar ayaa gadan doontaa tani kulantadeena dambe waa khadiijo idinku dhaafaysa sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan hadda waa isla socon doonaa xaaladda meesha ay marayso waa khadiijo sidaas iyo nabadgelyo sidoo kale facebookiga ayaa ka daawan doontaan nabadgelyo